dhegaystayaal weli isaga oo aan la shuumin isaga oo aan weli garaad loogu yeerin ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay coofka ayuu kor u taagay wuxuu isla ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayoo inta miciyihii soofaystay qooq la golongolay goob alla goobtii la isaga hor yimidba libin buu kala laabtay colkii uu hogaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday arlada ayuu habeela'aan u taxaashay hiyigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kala mid ah amaba ugu soo dhowaan kara ragannimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiire ayay ahaayeen dhab wuxuu u rumaysnaa mahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba soddongu ayuu baarka ka jaray xoog iyo garashaba wuu istaawiyey nin walibana bannaanka ayuu ka maray maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidhifka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaay la soo joogsaday hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow garaad faarax eebba ha u naxariisto adiga iyo annagana ha inaga samirsiiyo waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay aadna uga walbahaaray waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay madaxa ayuu foorarayey cabbaar kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen shownin la oran jiray khayre shirwac iyo garaad faarax ayaa muddaba eed lahaan jiray wuxuu khayre garaadka ka taban jiray in badan oo uu tolka wax u qaybiyey inuu isaga ka eexday cadaalad darro gooni ugu dhacday ayaa maankii ka qaaday kolkaas buu dhagar ku tashaday dhiiggii garaadka ayaa u hilaacay waxaaba iska hor caddaysay intuu dilo garaadnimadaba inuu isagu kala wareego dabadeed iyada oo la degan yahay hoos saare meel la yidhaahdo oo geedkii shirka lagu dhan yahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayra soo muuqday waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhexda haysto wuu soo dhowaaday nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu warramay isaga oo aan odhan ayuu shirkii gabay ku bilaabay waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar malab ah oo meel qotoma oo rag wada quuto khayrow aduunii ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midig ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hooto halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen khayre shirwac kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meeroo adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay anna waan ka qaday laba xajuub oo aan kala fogayn ayaa galabnimadiiba khayre iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaca dhambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geerida aabbihii ka sokow farriin kale ayuu wiilwaal u siday odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro markaas bay wiilwaal tala ku caddaatay laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digniin helay col mahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidlo ka heli doonaa nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxay geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si degdeg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xidho ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kale hagta waxna u qaybisa wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada hawaysan karaysa jawaabtu waa maya ma cid baa kugula murmi karta iyana jawaabteedu waa maya cabbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go'aan gaaray wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u toog hayo tolkana uu ka caabiyo dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaaya ayuu u yeeray wuxuu u dhiibay go'iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yiqiineen markaas buu ku yidhi maradaan qaadoo kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo dabadeedna iyada
ha la caleema saaro oo caanaha lagu shubo hana loo dabaaldego aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo waa la yeelay waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horrayn wixii garaadada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun u suuro gashay haddii khaylidii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax muxuu la soo bixi doonaa muxuu noqon doonaa anshigiisa wax ma iska bedeli doonaa mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa su'aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjoogga u ahaa kuwii ay maalintaa isweydiinayeen inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyey waxayna barayaan garaad wiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayey inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama beddelin ma uu noqon oo keliya nin madax ah oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa taakileel gelin karaba wuu u dardaar wariyey wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh wuxuu isu ilaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idili ku heshiisay inay nafta weysiiso waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey ma dilkii aabbihiis buu ku weyraxay markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayay dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay sidaasna uu ugu godobaysnaa soomaalida ayaa waxay murti kula baxday dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey feejignaantii wiilwaal markii la toydo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay socod iyo nagaansho hurdo iyo soo jeed shir iyo kelinnimo ceel iyo carshin meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee qalab dagaal baa gacanta ugu jira dhiila ayuu ku seexday aamin darro uu uunka eebba ka qabana wuu ku soo toosay alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda